bismillaahi raxmaani raxiim waxaan wanaagsan daawadayaal guud ahaanba meel boodan joogtaan ama aad inaga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijyo si live ah hadda kadib aad ula socon doontaan oo idinkaga soo tobin doono magaalo xeebadka Cape ee dalkani Koonfur Afrika waxa garabkayga midig fadhiya saxafiga caanka ah wada taqaanaan kana mid ah farsamayaqaanada marka ay timaado idaacadaha iyo barnaamijyadooda aad ka looga dambeeyo waa kuma محمد أحمد سياد قال إيه ولي بدنكي قبل أو فديو صاحب يا قالك عوري سرع عبد الرزاق عبد الله محمد إنه جاي بعد ما سنتين دمانتين سوى البعضنا دعوانا إنسان برنامج كان هديات سي لايف أو لو سعتيد إيو أنت كلا يدبو دعوان دونت أنت بوينو سلامينا وحمان تكدب أنه إذن بلنقادي دونا هل كان نقصو فريساني halkan horta waa stuudiyaha aynu ku leenahay magaalo xeebadka Cape Town ee dalkan Koonfur Afrika oo aniga iyo geele iyo asxaab kale oo badan aan ku wada noolnahay saldhigna inoo ah marka ay timaado suxufiyiinta Soomaaliyeed ee South Africa stuudiyaha kaliya ay leeyihiin waa kan waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo aynu isleenahay in badan aad isweydiiseen anagana aad ina soo weydiin jirteen maanta kadibse si live aad ula socon doontaan hadii rabbiga awood leh oo inuu saamaxo barnaamijyadaanu isleenahay dadweynaha waad ka qabtiri doontaan waxa kamid ah taadiyaadka iyo dhibaatooyinka loogu geysto dalka Koonfur Afrika Soomaalida ku nool oo waliba ganacsiga ku leh sidoo kale waxa jiri doono in badan oo bulshada Soomaaliyeed ee dunida daafaheeda ku nool ay ka fikir ahaan ay ka qabaan dalka Koonfur Afrika in uu yahay meel dhac dil kufs dhibaato dhan ay haraysay taa bedelkeed waxaan soo gudbin doonaa nooc walba oo horumarka ay Soomaalida ka gaartay Koonfur Afrika ku saabsan marka ay timaado ka hadalka Soomaalida South Africa alaaba waxa digiinu ku soo dhaco ama aad shaashadaha caalamka ka daawataan tacdiyada iyo dhibaatooyinka ay Soomaalida la kulmaan taa bedelkeed waxaan dhan kale idinka tusi doonaa nolosha dhabta ah ee Soomaalida ku nool South Africa iyo guud ahaanba caalamka sidoo kale waxaanu booqasho ku tagi doonaa goobaha ganacsatada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin location ilaa iyo magaalo hadii rabbiga awood leh oo qadaro hagaag location waxa loo jeedaa tuulooyinka isku raranka haba ugu badnaadeen ee South Africa hoos yimaada magaalooyinka sida magaaladan aynu ku noolnahay ee Cape Town locationadana waa goobaha ugu badan ee Soomaalida ku nool yihiin nolosha dalkii hooyo iyo dalkan farqiga u dhaxeeya from siliga ilaa silaca South Africa ee kula kulmaan iyo horumarada laga gaaro dhammaan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijyo maanta kadib aydun kala socon doontaan YouTube-yadeena aniga iyo saaxiibka Geele waa Geele TV iyo waliba Inda TV hagaag sidoo kale waxaanu idin soo gudbin doonaa in aynu soo dhaweyn doono qof kasta oo hal abuur leh iyo waliba qofka aanu isleenahay bulshada ayuu wax u sheegi karaa hagaag studio mar hadaad maqashid waxa uu furan yahay qof walba ku hadla luuqadeena Soomaaliga iyo qof walba oo talent leh oo isleenahay bulshada Soomaaliyeed wax buu ku soo kordhin karaa ama qiso isagoo ku dhacday ayuu si loogu cibra qaato bulshada soo bandhigi karaya waana sababta ay suxufiyiinta Soomaaliyeed loogu tilmaamo in ay yihiin kuwa soo saara dadka ka qarsoon bulshada inteeda kale balse talentiga leh intaan barnaamijkan aan ka bilaabi doono oo maanta idin soo gudbinay hordhaca aynu isleenahay bulshada Soomaaliyeed idin daawan doonto way idinka faa'iidi doonaan ayaan inta ku soo gonaanideyna waa saaxiibkay Cabdi Rasaaq Cabdullaahi Maxamed oo dhankayga bidix fadhiyo iyo waliba saaxiibkay Maxamed Axmed Siyaad Gelle oo aad u wada garanaysaan waxaan idin leenahay nala socda hana naga ilaabinina share talaagta iyo waliba commentiga iyo subscribe-ka aad baad u mahadsantihiin million times